madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyay maanta munaasabadda dabaaldegga sanad guurada 35aad ee ka soo wareegtay markii Soomaaliland ay dib madaxbannaanideedii ka luntay uga soo ceshatay 1991 May. madaxweynaha Soomaaliland waxa uu shacbiga ugu bushaareeyay in markii ugu horeysay safiir uu magacaabay laga gudoomi doono waraaqaha aqoonsiga isagoo sidoo kalena halkaasi ka jeediyay hadalla garnaqsi u badnaa. maanta qarankeena maalinta qaran ee uu leeyahay muwaadin kasta oo Soomaaliland u dhashay waxa farxad gaar ah inoo ah in maanta uu yahay xuskii koowaad ee aynu xusayno 18 May iyadoo aynu nahay jamhuuriyadda Soomaaliland ee la aqoonsaday. waxa kale oo shacbigayga ugu bishaareynaya in madaxweynaha dawladda Israa'iil uu maanta warqadaha aqoonsiga ee danjiranimo ka gudoomayo safiirka idman ee Israa'iil ee Soomaaliland danjire Dr. Maxamed Xaaji. waxa uu noqon doonaa danjirihii ugu horeeyay ee la aqoonsan yahay ee ay jamhuuriyadda Soomaaliland yeelato 35 sano ka hor 18 May 1991 ayaynu magaalada Burco ku qaadanay go'aankii taariikhiga ahaa ee aynu dib ugu soo noqonnay qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland. go'aankaasi ma ahayn nacayb iyo caadifad midna, wuxuu ahaa go'aan ku dhisan casharadii aynu ka baranay Israa'iil lagu hungoobay ee Soomaaliland iyo Soomaaliya dhex maray 1 Luulyo 1960. waxaynu u ducaynaynaa halyeeyadii noloshooda, hantidooda iyo danahooda shakhsiga ahba u sadqeeyay in ubadkoodu iyo ehelkoodu ay gaadhaan himiladii u riboobi weyday iyaga. waxaanu ducaynaynaa haldoorkii bulshada iyo guurtidii nabadda iyo dib u dhiska qaranka dhidibada u taagtay. waxaanu mahadnaqayaa hogaamiyeyaashii seeska u dhigay dhismaha dawladnimada iyo hirgelinta dimuqraadiyadda oo sababtay nidaamka qoriisu dhiibka ah ee aynu horumarka aynu ku gaadhnay. waxaan bogaadinayaa guud ahaan muwaadiniinta reer Soomaaliland ee adkaysigoodu ku simay aqoonsiga aynu haysanno maanta. jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ka soo baxday dhammaan shuruudihii looga baahnaa dal mas'uul ah, nabad ah, sharci iyo dimuqraadiyad ka jirto, xuduudadiisana la yaqaano, dunidana xiriir wanaagsan kula macaamila. taasi oo keentay in su'aasha maanta jamhuuriyadda Soomaaliland dawladaha weydiisaa aanay ahayn ma u qalanaa aqoonsi, balse ay tahay goorma ayaad intiina kale aqoonsanaysaan jamhuuriyadda Soomaaliland. waxaanu mahadnaqayaa dawladda Israa'iil oo noqotay dalkii koowaad ee dunida si buuxda u aqoonsaday jiritaanka qarannimada iyo madaxbannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland. sidoo kale waxaanu mahadnaqayaa dalalka aynu jaalka iyo saaxiibka nahay iyo dal kasta oo garowshiye ka muujiyay qadiyadda Soomaaliland. waxaan mar kale cusboonaysiinayaa baaqeennii aynu dunida kaga codsanaynay in la aqoonsado xaqa sharci, taariikheed iyo akhlaaqeed ay jamhuuriyadda Soomaaliland u leedahay jiritaanka qarannimadeeda. waxaanu gacan saaxiibtinimo iyo iskaashi u fidinayaa dalalka kale ee aynu deriska nahay iyo guud ahaanba qaaradda Afrika iyo dalalka Carabta iyo Islaamka. waxaan ugu baaqayaa dalalka xubnaha ka ah midowga Afrika in wax laga barto cawaaqib xumada qaaraddeena ka soo gaadhay isku turidda dawladaha israaci kareen iyo
qasbidda nidaamyo siyaasadeed oo aan isqaban karin waxaan ku talinayaa in la qaato taladii guddigii xaqiiqa raadinta ahaa ee midowga Afrika u soo diray jamhuuriyadda Somaliland 2005 mustaqbalka wanaagsan ee Afrika wuxuu ku xiran yahay istixgelin nabad ku wada noolaanshiyo iyo iskaashi aan la isku khasbin dadka Soomaaliyeed inta sida xun waxa loogu sheegayna waxaan mar kale ugu celinayaa una iftiiminayaa in jamhuuriyadda Somaliland ee la aqoonsaday ay tahay dal kale oo soo kordhay qowmiyadda Soomaaliyeed dalkeena Somaliland waxa ka dhaba niyad wanaagii Abwaan Ali Seeyo suugaantiisa ku cabiray markuu lahaa salaadaydan goostee cidna eed kamaan gelin arrin gubasho keentiyo xaaje geedka lala tago golaha lama iman gacal iyo xigaalow Soomaaliya ay garo kala guurkii maahe kala gurasho weeye garo dalal badan oo sideedna midnimo ku tamarin waayay ayaa maanta mid kasta gaarkiisa u yahay barwaaqo sooran awood dhaqaale iyo diblomaasiyadeed ku jooga Serbia iyo Montenegro ayaa marag dhow inoogu filan labadan dal waxay isaga mid yihiin wax kasta oo Soomaalidu wadaagto dadkoodu waa isku isir waa isku af waa isku diin waa isku dhaqan waxa ka dhaxeeya taariikh mid ah iyo sooyaal siyaasadeed oo aad u dheer iskood bay u midoobeen 1918 88 sanadood kadib Montenegro waxa uu soo baxday inaanay danteedu ku jirin wada jirka haddii Somaliland dadkeedu 97% ugu codeeyeen madax bannaani dalka Montenegro aftidii laga qaaday bishii June 2006 dadkiisa 55% kaliya ayaa u codeeyay goosashada taas ayaanu ku noqday qaran madax bannaan intii ka dambeysay qarannimada dalka Montenegro waxa kordhay boqolkiiba 67 ayuu kordhay dakhliga wax soo saarka gudaha ee GDP-ga la yiraahdo halka dalkii uu ka go'ay Serbia 250% kordhay ganacsiga iyo dhaqaalaha dhexmara labada dal wuxuu maanta kordhay boqolkiiba 300 20 sanadood gudahood waxaan aaminsanahay in Somaliland oo qaran madax bannaanahi ay wax badan ka tari doonto horumarka dhaqaalaha iyo xasiloonida siyaasadeed ee dalka aynu jaarka nahay ee Soomaaliya iyo guud ahaanba gobolka geeska iyo bariga Afrika jamhuuriyadda Somaliland waxay u gudubtay marxaladda horumarka iyo dhismaha xuduudda qarannimada waxay isu diyaarinaysaa inay noqoto xuduud dhaqaale oo Afrika ku xidhaysa badda cas iyo suuqyada adduunka jamhuuriyadda Somaliland waxay xoojinaysaa amnigeeda iyo xasiloonideeda waxay dadaal ugu jirtaa si casriyeynta kaabayaasha dhaqaalaheeda waxaanay dunida ku soo kordhinaysaa fursado dhaqaale iyo maalgashi oo dihin xukuumadda wadajir iyo waxqabad waxay sanadka 2026 mudnaanta siinaysaa ictiraafka kobcinta dhaqaalaha maalgashiga iyo casriyeynta ciidamada qaranka ee kala duwan si loo kobciyo xirfadahooda anshaxa iyo kartida si xoojinaya awoodooda difaaca amniga qaranka
هي إلى علم حدودهيس مناسبة ما أنت قرن أوجه وحن صلاني الدعاء دريا إذا كقرنك هي كشرة وكشرة الدفاع قرنك إذا كبوليسك إذا كأسلوبته إذا كإلى حيبها إذا كالصعدال كي حدودها إذا كدبدبسك هل يجد الدريسك أحدا دفاع قرن كوده يهيئها أمنك قرنك قدهان وعليه ولا عليها وضنيته نفركينا ضاعد نمضى يدبر ضيقينا أيها تيرك وقوين كل سنتهاي نبت قليده حسلوني ده يشرفت قرنمada jamhuuriyadda Soomaaliland la aqoonsan yahay qarankiinuna uu idin ogsoon yahay waanu idin balgudaya muwaadiniinta Soomaaliland ee dalka iyo dibadiisa jooga waxaan idinku bogaadinayaa dal jacaylka iyo dadaalka aan joogsiga lahayn ee aad qadiyadeena Soomaaliland ku garab taagantihiin waxaan qurba jooga si gaar ah ugu baaqaya inay fariinta jamhuuriyadda Soomaaliland gaarsiiyaan golayaasha dunidu ku kulanto iyo fagaaro kasta oo caalami ah iyaga oo ah diranayaal dalkooda u adeegaya walaalayaal dimuqraadiyaddu waa guusha ugu weyn aynu maanta ku faano waxa waajib ah inay korto oo ay horumar samayso waajib baa naga saaran xoojinta hay'adaheena dimuqraadiyadda dib u habaynta shuruucda iyo xeerarka dalka iyo inaan horumarino nidaamkeena doorasho xukuumad ahaan way naga go'an tahay inaanu ka shaqeyno waajibaadkaas dadkaygu in siyaasadda aynu ku kala aragti duwanaanaa waa sababta aynu nidaamka dimuqraadiga ah u qaadanay laakiin yaynaan ogolaan in kala duwanaanshaheenu siyaasaddu uu dhaawaco qarankeena axadigeenu waa in qarannimada Soomaaliland ay ka sarreyso wax kasta oo ina qaybin kara waxaynu nahay ummad ilbaxa oo wada hadal iyo ismaqal ku xalisa caqabadaha ka hor yimaada Soomaaliland laba kala laha loomana kala abtirin karo waxa wada leh dadkeeda alla ku beeray mustaqbalkeeduna wuxuu ku xidhan yahay ilaalinta wada lahaanshiyaha iyo midnimadiisa dalka wuu inaga badan yahay khayraadka ku jiraana wuu inagu filan yahay waxaynu u baahannahay nabad iyo midnimo Soomaaliland mustaqbalka dhow waxay noqon doontaa dalalka dunida ugu hodansan insha Allah waxaan u mahadnaqayaa dalalka aynu saaxiibka nahay iyo hay'adaha caalamiga ah ee aynu wada shaqaynta leenahay ee maalmihii ugu dambeeyay siyaabo kala duwan noo soo gaarsiiyay hambaliyada iyo bogaadinta maalinta dib u curashada qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland ee 18 May dhammaan dadka reer Soomaaliland gudaha iyo dibadda waxaan leeyahay farxad iyo baraare ku damaashaada oo ku dabaaldega Allah barakeeyo jamhuuriyadda Soomaaliland dalkeeda iyo dadkeeda hambalyo 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 Somaliland ha noolaato Somaliland ha noolaato Somaliland ha noolaato Allahu akbar Allahu akbar والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته